ma laga yaabaa inaad aragtay qof lugtiisa paralysis ku dhacay ama gacantiisa awoodda ay ka tagtay ama jirkiisa qayb ka mida xanuunka dareemahaya amaba laga yaabo qofkaasi araggiisa inuu hoos u dhaco. qofkaasoo markii caafimaadka la geeyo oo isbitaalka la geeyo si walboo loo baaro sabab xanuunkiisa keenaysa la waayo. xanuunkaasi haddaba wuxuu noqon karaa xanuunka loo yaqaano conversion disorder. waa maxay conversion disorder? conversion disorder waa xanuun qofka calaamadaha xanuunkiisana markii caafimaad ahaan la baaro aan sideedaba lagu arkaynin sabab keenaysa oo jirkii qofka uu caafimaad qabo. laakiinse xanuunkan waa xanuunada dhimirka, waa xanuunada loo yaqaano psychosomatic oo sabab dhimirka ay keenay uu effect ama raad oogu yeelanhayo xubnihii jirka. xanuunkani badanaa inta la ogsoon yahay waxaa bilaaba ama uu ka bilowdaa stresska ama qofka oo murugo ama isku yaro buuq dareema, taas oo marka keenta in calaamadahan jirkiisa ka soo baxay ay yimaadaan. calaamadaha xanuunka lagu garto waxaa ka mid a qofkii oo araggiisa ama hoos u dhaco amaba indhihii beelaan, maqalkiisa hoos u dhaco amaba maqalkao dhanba beela, qofkii oo laga yaabo qayb ka mida sida gacanta ama lugtoo kale inay awooddi ka yaraato, xanuun uu dhinac ka mida dareemahayo. waxaa laga yaabaa inuuba qalal yeesho. waxaa laga yaabaa hadday dumar tahay inay uur dareento, caloosheedii ay bararto, markii la baarana laga waayo oo aysan uur ahayn. xanuunkan conversion disorderga la yidhaahdo waxaa lagu daaweeyaa loo yaqaano cognitive behavioral therapy, taas oo yaraynaysa stresska iyo fikirka xun ee laga yaabo inay trigger garayso ama ay xanuunkan ay bilowdo ay qofka zaa'id uga sii dhigto. qofkii hadduu mathalan aan hadli waayo, speech therapy wax la dhahaa loo sameeyaa. hadday gacanti dhaqaaqi weydo occupational therapy iyo wixii lamida loo sameeyaa. mararka qaar qofkan daawooyin baa la siiyaa oo stresski iyo wixii ka yareeya. waa anigoo Dr. Cabdiqaadir Xuseen. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.